afar dhalinyaro ah oo dhalashadoodu ay tahay Soomaali ayaa kaalinta afaraad ka galay ciyaar nooca gacanta laga ciyaaro oo loo yaqaan gacan kuliid oo ay soo qaban qaabisay Olombikada adduunka ayaa lagu qabtay magaalada Alexandria ee Sharm el-Sheikh. afartan dhalinyarada oo kuba iskood isu soo abaabulay ayaa habeenkii xalayta waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay xarunta Somali Community ee magaalada Qaahira ee dalka Masar. ugu horreyn waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar Xuseen Usman Saxnuuni oo mahad u celiyay guulaha ay gaareen raggan dhalinyarada ah lana dardaarmay mas'uuliyiinta isboortiga Soomaaliyeed si il gaar ah loogu fiiriyo dhalinyaradan magaca soo hoyay waxa uu yiri ahantii aad baan ugu faraxsanahay guushan ay gaareen dhalinyarada Soomaaliyeed ee uu horkacayo gudoomiyaha xiriirkan cusub ee ku soo biiray guddiga Olombikada Soomaaliyeed oo aan horay u jirin oo uu hogaaminayo Cabdullaahi Xoosh. inta kadib mar raba hadalka inaan ku sii dheeraado laba kelmad oo kaliya waxaan leeyahay marka hore wasaaradda isboortiga ee dalka Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya in dhalinyarada ayaga ah in ay dhiirigelin ay u sameeyso isla markaasina taageero mid macnawi ah iyo mid dhaqaale in ay siiso waa qodobka ugu horeeya aan u jeedinayo dawladda federaalka. qodobka labaad waxaan la hadlayaa xiriirka Soomaaliyeed ee Olombikada Soomaaliyeed hoggaankeeda sare guddigeeda dhexe guddi hoosaadka dhammaan ayagana waxaan ka codsanaynaa inay garab istaagaan isla markaasina ay u aqoonsanaan Cabdullaahi Xoosh iyo dhalinyarada garbihiisa taagan in ay yihiin xiriir cusub oo ku soo biiray guddiga Olombikada Soomaaliyeed. sidoo kale waxaa halkaas ka hadlay Sheekh Yuusuf Xuseen Jamcaali oo asaguna amaana dadaalkii ay sameeyeen raggan dhalinyarada ah runtii ayagoo runtii la caadifooday ama maaragtay ayagoo dareemayo ahmiyadda ay leedahay shabaabkan ama dhalinyaradan ku guulaysatay koobkan hadda hortayna ka muuqdo oo aan arkayna shantii iyo calaacushi oo iswadato ayaa hadda hortayna ka muuqato raggan ku guulaystay ciyaar aysan Olombikada Soomaaliyeed hore uga mid ahayn ayagu ay curiyeen kadibna ay la goob tageen guul weyn ay ka soo hooyeen. waxaan aad iyo aad u dareensannahay sharafti Soomaaliyeed cid kasta xil baa ka saaran ninka ciyaar ku keeni karo iyo ninkii ku keeni kara qalin iyo ninkii ku keeni kara cod iyo ninkii ku keeni kara lacag maal iyo ninkii ku keeni kara aqoon sharafta Soomaaliyeed cid kasta mas'uul ayaa ka saaran xil ayaa ka saaran inuu soo celiyo. sidoo kale mas'uuliyiintii habeenkii xalayta halkaas ka hadlay waxaa ka mid ah Shidana oo ku hadlay magaca Somali Community iyo gudoomiyaha isboortiga jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar Ibraahim Sheekh Cabdullaahi Macu gudoomiyaha SYO Mudana Tuuryare Kaltuun Rabiina Hufane oo ku hadlaysa magaca haweenka magaalada Qaahira. dhammaan gabi ahaanba dadkani waxay isku raaceen raggan inay magac iyo maamuus bay u soo hoyeen ummadda Soomaaliyeed guulana ay ka keeneen shirkii Olombikada adduunka ay kaga qayb galeen magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar waxayna sheegeen in naftooda iyo maalkooda ay u hureen isboortiga Soomaaliyeed. Cabdullaahi Maxamuud Xoosh oo ah maskaxdii ka dambeysay in guushan la gaaro hadal farxad ka muuqato oo xalay ka jeediyay xarunta Somali Community ee magaalada Qaahira dareenkiisa waxa uu ahaa sida tan sidoo kale hadda waxa joognaa waqti aan bilaabi lahayn hore waxa ku jirnay diyaaris hadda waqtigii aan bilaabi lahayn wax caawa aniga aan ku faanayo wadankayga ku faanayo dadkayga ku faanayaan ayay ii noqotay wixii aniga sameeyay haddii aniga heerkana gaaray caalamiyan iyo maxalliyan Soomaaliya gaartay Soomaaliya ayaa gaartay waa wax Soomaaliya ay gaartay dhammaanteena ku faanayna calankeena inaan meel sare aan gaarsiinay koobkan arkiisiin waa koobkii aan soo qaadnay waa ka soo qaadnay magaalada Sharm el-Sheikh horay koob kala soo qaadnay ciyaarta markii lagu guulaysto koobkan la siiyay 30 dawlad ay ka soo qayb gashay waxaana ka galnay kaalinta afraad hore loo hadlay hadal badan ma sheegaan kaalinta afraad ka qayb galnay tii Afrikaanka iyo Carabta waxa ka galnay kaalinta labaad dhinaca Carabta kaalinta labaad dhinaca Afrikaanka kaalinta labaad markaan ciyaartan kaliya wax aan ku faanayna kaliya ma noqon maanta waxay noqotay qof walba oo horay oo mamarsiye haysto oo ciyaartu ka weynaayo oo khibrad kara ciyaarta mahad Carab oo Cali telefishinka Universal القاهرة.